marka waxa weeye waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid atuu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay ilaahayna ka soo waaray waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leh waan ku dhaqaaqomayo musliimta meel kasta oo joogto naga soo gaaraan ku oranaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan la joogaa walaalkeen maxamed Musa Gamtesa oo 20 sanadood xidhnaa intii u dhaxaysay 2001 2021 shalayna soo baxay Allah mahadi waxaan doonayaa dhowr su'aalood inaan weydiiyo walaalkeen maxamed oo ku saabsan waayihiisii xabsiga ehelkiisii iyo goortu ka yimiyo wixii war maxaa ugu dambeeyay qorshihiisa mustaqbalka waxaan doonayaa marka hore inaan ku bilaabo xagga ehelkiisa doonayaa ehelkiisa maxamedow waxa tahay nin oromana way balaaran tahay ka halkee baa tahay oromada magaalada deegaankee deegaanka Jimma Bajifar wala waxa la yiraahdaa Jimma Bajifar xagee ku taala Jimma hadda sabab ka sheeya sabab ka sheeya xagee bay si xigtaa xagga Suudaaniga xagga Suudaan bay si xigtaa waan gartay marka magaalada gudaheeda deganeydeen mise waxaad ahaydeen beeratadayda may wali magaalada Jimma ku dhaafisaayo dhowr magaalo ku igaayo an ka baa Jimma xagga shiishe wayaan meel bunka wala ku beero meel bunka lagu beero marka waxa ahayd dad waxaad ahaydeen meel tuulada joog tuuladiina maxaa la yiraahdaa gaatra wala ما شاء الله gaatra waxa weeye Jimma ayaa magacaasna waan maqlay aniga laftaydu waxa weeye waa magaalo mise waa gobol waa isli Hargeysa kale uu noqonaya waa magaalo waan gartay goorma kugu dambeysay ehelka xabsiga ma kugu soo booqan jiray maya imika inta 2000 intan ka soo baye 2001 waa la soo qabtay xabsiga waa la yidhigay reerkaygi ma arkin maxaa dhacay waa weeye telefoon aniga xabsi ku jiro oo soo baye meelun ku ilaalu male ma argil reerka intaad ku jirtay kugu meeman may yani ka warqabin may ma magali inaan dhimtay waa lagu haystay inaad dhimatay waa la iloobiya inaan nolol lama haysto yani inaad nooshahay iyo inaad dhimatay lama oga lama oga halkay kugu ogaayeen marka hore inaan dhoofin doonayaa halka marka soo gaaro laatiga dhamaatay ani shaqayso intan gore ilaa kulme shirka shaqayso iska dhoofin gore ana shaqo bilaabe arinta afsiga soo galay marka tahriib baad hayd inaan taariibun doonaya marka ma ku ogaayeen ehelku inay soo tahriibtay may markaas ay ga dambeysay aniga ama wax kule markaad soo baxaysay ma ku ogaayeen waxay kugu ogaayeen tahriib xagad u socotay Suudiga waayo kadibna arrin baa kula kulmay iyagu inta ma ogaadeen oo imika waxa jira dad badan oo ka soo jeeday Ethiopia warkaaga meel la gaarsiin may lama gaarsiin meesha waa afsi telefoonka meesha lama ogalo telefoonki ma soo galo meelun ku ilaalu male xabsiga lagu ogolo maxaa dawala ku qabto meel wala ku geenaya wala ku seelanaya waa qol gaar lagu xidhay telefoon way xabsiyadeed baad ku jirtay ma hal xabsiyood ku jirtay mise xabsiyo kala duwan halkan xabsigii hore waa la baabee waa la qaali 2000 Madeira waa la geeyay koobiyo 10 sano joogay Madeira 10 sano ku xidhnay 2006 baa laga qaaday xabsiga Hargeysa xabsiga waa la dhisay marka maxaa laga qaaday xabsiga waa la dhisay marka Madeira lagu 10 sanadood oo min 12 bilood soo waa gartay kadibna waxa lagu soo celiyay waa la soo celiyay 2012 ayaa lagu soo celiyay xabsiga ilaa imika ku jirto ka soo baxay waaye waxaad ka warantaa bal waayahaga xabsiga qof aan xabsiga fikrad ka haysan bal uga waran duruufta iyo nolosha halka ka jirta sawir naga sii
walaalo meesha waa cabsiyo waxaa laali waa soogal sooba loogaabti buu na siinayaa waa lana swareynayaa meesha waa cabsi nin walba u garanayaa cabsiga waa sheeko male kii shalay soo galay kii sano u joogo kii 10 sano u joogo cabsi waa isku midi alxamdulilah rabbil aalamiin waa ilaa maan nagina xabsiga Mandheera ka waran iyo xabsiga Hargeysa keebaa la qaatay wallahi xabsigii Mandheera biya qaraaru ku waabisa biya saa ku dilaya qof biyaha qaraara xabsiga Hargeysa way wanaagsan yahay iyo loo dhaama xabsi waa xabsi wanaag male xabsi waxaad ka warantaa sadaadu marna ma gooda inta ku jirtay oo ma quusatay mise rajo ayaad sugi jirtay markastaba inay timaado wallahi waliga inta meesha ku jiro waan ka baayaa ma orayn ilaa inaga soo gaara alaf kama sheekayn karayo aan ka soo baa ma oran jiray anu waan quustay qaar badan meesha ku jira kuwaas waan u ducaynaa insha Allah ilaa 8 qof ku jira qaar 9 iyo 12 alhamdulilah rabbil aalamiin waa ilaa mahdi kuwa meesha ku jiro waan u ducaynaa insha Allah sida degilay ka soo saaro marka waxa weey waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid atuu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay naga soo gaaray nimankii shaqeeyay ilaahay baa gudiya insha Allah warba akra shaqaysto wallahi ma sheegin karayo qof reerkiisa joogin qof reerkiisa joogo isku mid maaha qof reerkiisa joogan iyo qof aan reerkiisa joogin isku mid imisa dhimtay imisa waa la sii daayay intaasoo iska jiifa انت الله نارستو وانو داينا انت ميجي كو جرت الله فوق سو سارو waxaan ku weydiinayaa hooyo iyo aabbo ma nool yihiin walaalo aabbo aniga Itoobiya joogu dhintay hooyo u joogtay barigiga dambe ee walaalayo jooga imika war maayo markii kugu dambeysay hooyo way noolay aabana wuxuu dhintay adoo Itoobiya joogay war kama haysid laakiin hooyada war maayo waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leh waan ku dhaqaaqo maayo musliimta meel kasta oo joogto naga soo gaaraan ku oranaya waan gaari ku fulu maayo aragii shaqay meesha ka soo saare waaba wadiin karam maayo waa ili baa wadan karam maayo musliimta meel kasta oo joogto iga soo gaara waan iska tagayaa intaasaan ku dardaaramayaa walaalo laakiin anu amaan dhimto amaan noolaad waan ka soo baye kuwa afsi ku jiro ilaahay ka soo gaaro
وأنا أدعي إن شاء الله أما ورمونك وأما سمالي ونك إلى يكسوغار ولا لا يمسد leedahay aad ku ogeedin nolol kiishana waa aniga kan waa ka dadka xabsiga kugu yimaada dhaqaalaha leh dadyo kala duwan ayaa jiray arrinkaaga ma u bandhigi jirtay ma oran jirtay iga bixiya magta maxaad kala kulmi jirtay walaalo waa la halin jiray qaar badan inta waan ka beenayaa oo yiri qaar ku dhintay qaar wallahi u jooga imkan waana suustaa ilaa mar ilaa halkan dhowr jeer waa la ii sheegay oo nagu waay walaalo asla walaalo oo lagu waay kaygi waas ka seeloon waan dooniyaa reer Soomaaliland waan sheegayaa iyo dawladda Soomaaliland nimankana habsi ku jiro ammaan ala siidaw ammaan dalkiisa ala helo intaas uu dardaarmaya maxaa u dardaarmay isku celi ammaan meel walagi ammaan ala siidaw ammaan dalkiisa ala helo nimanka habsi ku jiro nimanka ka soo jeedal Itoobiya ka soo jeedo ala siidaay ama dalka lagu celi ka waran markii Itoobiyaanka xagga jooga bal nooga waran yani warbixin naga sii walaalo sidii qof meesha ku jira kiisa galaa reer beedeeyo reer ahmar waya kawa 19 sano ku jira mid waa ku jira sanadkii 20 ku jira qaal 12 ku jira oo kaay uu jooga nimanka sidii qof meesha ku jira oo Itoobiya ka soo jeeda kiisa galaa waa reer beedeeyo waa reer beedeeyo raga maxaad oran lahayd والله وانو دواني يا الله لي وان قبن كرمايو وانو دواني يا كسو غاران قران يا كسو غارا انت ميشا كودي من maxaa ku qorshaysan imika maadaama soo baxday Hargeysa joogtaa halkana joogtaa shalay baad soo baxday mustaqbalka maxaa ku qorshaysan inkastoo aan maqlaynayna doonaysa inaad baxdi laakiin miyaad jeceshahay inaad joogtid miyaad tagaysaa haddaad tagaysid halka maxaad ka qaban doontaa insha Allah ولا لو أدى إلهي مسلمين وسكري أدواي إلهي نوسودي وان دونيا إن ندلك كيس كنوكو أدوا سواي هالكنو بلا مقالة مسكتشي في جماعة شك إنسان كرم مايو وان شلاي أفسي جيد الشيء وان دردارة ميا مسلم يقصو قارا انتاسمو دردارة ميا واتسل الحبسي kasoo gaadha ayuu ku soo gabagabeynayna walaalkeen yani halo gurmado garabna hala siiyo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.